السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفضل مقالكنا كنت دبو مقالكنا هلو مقعبة فلان هلو مقعبة جدا ونصب على بدوكنا لباتنا لباتو وفيلم عجبنتو أنا فضل مقالك لايك صار سبسكرايبنا صار أدبد ما تصنطهي فيلم كنا في أو كنت بدوشة وان هذا وحين أركنا أسقى أصعد ملفك كدب ما سأجو أصعد أي نقطة ملفك أسقى قرني ورقدها إن كان ملك أصعد والدنيا كدب كله حاجة أصعدها balse xilligaasi kadib shaqadaasi markay subaxan waxaan arkaynaa iyaga oo safar dheer kaliya safarkaasi oo ah meel fog kadib gobolka ayaa labada dib u dhacaya waxa ayna shidanayaan dabka ay shidanayaan inta ay dabkaasi ku kafaxayaan habeenkaasi ayay sheekaysanayaan balse habeenkaasi waxay ka sheekaysanayaan wuxuu ahaa su'aalo inay isweydiiyaan su'aalaha isweydiinayaan wax ka mid ahaa barnaamijka tagsiga inuu weydiiyo ninkani barta uu u socday waxa uu ku yiri waxaan u socdaa kaliya inay tahay meel shaqo laga xisiiyay wallahi waxa tahay cajiib sababtoo ah waxa tahay ninka u horeeyay ee shaqo u doontay baadiyaha maadaama ay dadku inta badan u soo doontaan shaqada magaalada balse xilligaas wuxuu yiri shaqada kaliya nolosheeda bedeli karta ama masdhi kara nolosheeda u bedelaysaa waa shaqadan hadda aan u socdo oo kaliya waana shaqada baadiyaha hadda aan u maranayna xasuusta maadaama aan ka raadsan doono booqa magaalada amaba jaamka badan ee magaalada taasoo ka dhigan inuu hadda u socdo shaqadaasi balse hadda kadib waxaan arkaynaa iyaga oo waaga u bariyay kadibna galaya safar dheer safarkoodii intaas isu socdaan waxaan arkaynaa iyaga oo dalabarkii oo daalay balse dalabarka kadib gaariga waxa wada ninkii marka hore uu waday mar waday balse xilligaas kadib waxaan arkaynaa isla dalabarka gaariga xoog u wada asigana ku badinaya balse gaariga ayaa bartaas ka halaabaya dalabarkana uu deganaya kadib waxa uu leeyahay sidan maxay tahay gaariga maxaa laga hadlanaysaa balse xilligaa kadib wuxuu leeyahay gaari dhib ma laha waan soo hagaajinaynaa sidanna waa caadi waa dhacdaa gaariga aan wada hagaajinay maadaama inuu wada sugayso shaqo badan kadib balse xilligaas inta gaariga hagaajinayeen waxay arkayaan dahabkaas ayay ku farxayaan labadooduba maadaama gaariga bartan kaga halaabay ay dabka ay saaran lahaayeen inay qodan lahaayeen kan ninka ayaa arkay kadib waa u yeeraya kadib labadoodu way qodayaan waana soo saari waayeen dabkaas oo maadaama uu dabka waa dab xoog badan balse labadooduba maadaama gaari ay ku xidhayaan gaarigaas marka ay ku xidhan way soo saari kari waayeen taasoo ka dhigan in labadooduba ay soo saari waayaan gaariga xataa uu soo saari waayo balse inta kadib waxaan arkaynaa iyaga oo xawooyin iyo balaayoyin soo qaatay si ay dab u shitaan amaba si ay habeenkaasi u hooydaan iyaga oo waliba halkaasi ku geliyay maadaama ay yihiin rag dahab arkay waxayna ka tashanayaan labadooda mid ka mid ah uu tago oo uuna gaariga sii qaado soona hagaajiyo dalabarka ayaa ku yiri orod gaariga sii qaado soona hagaajiyo balse dalabarka ninka u weeda ayaa yiri orod odiga gaariga soo hagaajiyo aniga ayaa sii ilaalin doona labadooduba waxay ka cabsanayaan inuu midka kale uu ka midka kale uu ka xaday gaarigan balse hadda kadib waxaan arkaynaa labadooda inay isleeyihiin orod sii qaad aniga ayaa sii qaaday adiga sii qaad aniga may adiga ayaa sii qaadaya balse xilligaa kadib dalabarka ayaa ku go'aansanaya inuu asaga sii qaado maadaama wuxuu dhidaan aniga gaariga ayaa sii qaadi doona waana soo daahi doonaa waxaan u yeeri doonaa rag shaqada soo guro rag shaqaalayaal badan oo shaqadaasi soo qaadi doona intaa kadib waxaan arkaynaa iyaga oo u socda meel iyaga oo isla waan tagayaa dahabkan ilaali halka kaliya ku tajiri lahayn maadaama taasi ay mid iyada u xilsaaran balse hadda waxaan arkaynaa labadoodu oo istaageen meel waagana u bariyay kadib waxa istaag wuxuu dhahayaa biyahan qaado halkan si joog farahan wakaas aniga waan tagayaa waxaan soo qaadayaa dad dahabkan qoda misda waxaan gaarigana waan soo hagaajinaya si aan dib ugu celiyo balse xilligaa kadib ayaa arkaynaa dalabarka inuu iskaga tagay misla daaqada uu furanaya ninkan oo misla kaga tagay dahabka uu xabaalaya sida dadka u arag balse xilligaa kadib waxa uu samaysanaya tandadaasi wuxuu u dhibiyaa inuu telefoon u hel u shaqeyn waayo balse wuxuu soo orsanaya xawooyinkaas uu rabo inuu ka shito dab habeenkaasi uu ku bariyo halkan habeenka markuu ku bariyo halkan waxa uu rabaa inuu fadhiisto halkan kadib maadaama ay rabaan inuu halkaasi u noqdo meel ayda uu telefoonkiisa usoo dhacaya maadaama telefoonkiisa uu raadinaya hadda waxa uu arkaya telefoonkiisa oo shaqeynaya balse xilligaas kadib nasiib xumo telefoonka ayaa batariga ka dhacaya balse waxa xilligaas kadib arkayna iyada oo qoraxdana kulushahay duufaano badan ay dhacayaan duufaantaas oo ku kalafaysa inuu bartana uu ka loogayo misna uu dhisto meel iyada u gaar ah isaga u gaar ah balse xilligaas kadib waxa uu arkaya isagoo u socdo diyaaradaas waxa uu ka dhex qaadanaya meel diyaaradaas ayuu dhex galiyaa balse wuxuu is dareemayaa in diyaaradda iyo dahabka meesha u yaala ay kala fog yihiin taasoo ka dhigan inuu diyaaradda ka qaato alaabooyin badan si uu ugu tago halkaasi isagoo alaabtaasi qaadanaya kabacdi wuxuu arkaynaa isagoo alaabtaasi markuu qaatay ku dhisanaya taladaas ayuu dhex saxanaya wuxuuna arkayaa isagoo jacjifa taladaasi waagina u bariyay balse xilligaa kadib waxa uu isdhahayaa soogac oo soo fiiri dahabka inay la bax karto inkan markuu la bax dahabkan waxa uu isdhahayaa may dahabkan hala bixin oo inuu qaataa maadaama ninkan uu ku jiro hamigaasna ay yahay inuu dahabkan wada qaato si uu noqdo mal qabeen balse kadib hadda waxaan arkaynaa isagoo u wacay dalabarkina ku hayo waan soo socdaa waana soo dhawahay balse in yar kaliya ay soo dulqaado waxaan arkaynaa waxaan soo wadaa raggii dahabkaas qodi lahaa soona qaadi lahaa balse hadda waxaan arkaynaa isagoo gobolka u dhacay misna haysta qori dab ah dahabka ku dhihina qori dab ah astaghfirullah kadib iskaga caawinaya
xayawaanada balse xilligaas haddana waxaan arkaynaa waa kasoo bariyo aan arkaya abeesada ayuu ku boodiyaa si uu cuno aan uga baxsaneyn maadaama qod uga raasatay balse qoyska inta uga raasanaysa waxaan arkaynaa adiga oo biyihii ka dateen inta biyaheed u weystay ka dateen balse hadda inta biyaheed maadaama ay ka dhamaatay waxaan arkaynaa isagoo oo meel fadhiya isagoo oo meel diyaaradda ay ka raasanayo qod turturoodi uu cunay lahaa balse hadda maadaama qod turturoodi wuxuu istaagay meel wuxuu arkay qof bilaadan soo socda qofkaasi ayuu diyaaradda ka gambaday si uusan u arag balse qofkaasi maadaama diyaaradda ku wareegsaday wuxuu fadhiistay diyaaraddii waxaanu ku yiri soo bax maxaad laga gabanaysaa aniga ayaa biyo ku haya haddan soo bax balse hadda markuu soo baxay waxa uu leeyahay qof yahay meeshan iskaga tag waxa taana ma garanay iskaga tag meeshan igana had nolosheedana ka had balse hadda waxaan arkaynaa iyadoo ku hesha halkan sidoo ku imaatay kabacdi waxa uu leeyahay iskaga tag meeshan iyadoo u socoto meel fog iskaga tag hay daba soconin aniga halkan kaliya ayaa joogay shaqo ayaan u duntay halkan shaqo ayaan rabaa inaan ka xasuusto balse xilliga kadib waxaan arkaynaa sidoo kale iyadoo daba socoto balse dib ayuu fiirinayaa kadib waxa uu leeyahay iga had qof yahay iga had aniga kama hadhaya ay leedahay maadaama ay rabto shaqada barta uu socdo inay ogato maadaama ay rabto shaqadaas ay barta u socdo inay ogato balse dib ayuu ugu laabanayaa wuxuuna leeyahay bartan aniga ayaa shaqo u duntay mar rabon cid kale inay dhex gasho fadlan iskaga tag halkan iskaga tag balse hadda waxaad ogaataan ninkan meesha uu la farsanaya in ay tahay naag waxna waa naag la soo xaaladaba balse naagta markay soo daba kacda kadib waxay arkaysaa iyada oo taladiisa u imaanaysa taladiisa ayay farfaadhaysaa waxa uu leeyahay taladeeda faraha ka qadhay iga tijabinin wuuna ka cashanayaa balse talada marka uu ka cashada kadib waxaan arkaynaa asaga oo taladiisa difaacaya kabacdina iyada u imaanaysa oo taladiisa uu difaacayo maadaama ay ku leedahay waxa qaranaysa isheeg maadaama ninkan uu isleedahay waxba ayuu qaranayaa balse intaas kadib marka ka badbadan weyda waxa uu dilaya wuxuuna ku dhufanayaa bedel uu halkaasi gacanta ku hayay isagoo weliba ka qaadanaya cuntooyinka ay haysay iyo weliba wax walbaba ay haysay balse xilliga kadib waxaan arkaynaa isagoo weliba midkii meel ku riday cuntooyinkeedana iska cunaya ay wadatay midka kadib waxaan arkaynaa isagoo oo cunaya xayawaanooyin badan xayawaanadaas kadib waxa uu sameynaya inuu soo jiido midkiiba uu gubo bala ku dirtay midka taa uu gubay ka hormar bahida loo qabo arkay hadda waxaan arkaynaa isagoo hadana telefoonka helay telefoonkan uu shaqeeyay wuxuuna ka wacay ninkii wuxuuna ku leeyahay inii anigu gabadh ayaa iimatay gabadhan ma garanayo balse waan dilay balse halka iga soo gaar ayuu ku leeyahay hadda waxaan rabaa inaan meeshan iskaga tagno telefoonkaasi kadib marka uu dhacay wuxuu ku leeyahay waa soo socdaa raggina waa soo qaadaya balse hadda wuxuu arkayaa gaarigaas ayuu rabaa inuu qaado dahabkan ka qato maadaama dahabka inuu ka goostay balse damac dheeri kadib waxaan arkaynaa isagoo dahabkii waxba ka qaadanin dahabkiina uu bartii u yaallo gaarigina uu ka tegay sidoo kale waxaa ka soo kacayo duufaano badan duufaanadaas waxay ku dhufanayaan intii inta barta qobkeeda u dignaa ama intii inta gurigeeda u dignaa taasoo ka dhigan in duufaantaasi noqdo duufaan xoog badan asagana waxba ka arki waayay dahabkiina ee qarsoomo marka kadib waxaan arkaynaa isagoo waagim ku bariiso tusiyo isagoo xaana badan weliba carrooyin badan active ka tahay waxbaan arkaynin taasoo ka dhignayd inuu marka carrada iska dardariyo kadibna soo aado kadibna uu raadiyay barta dahabka uu ku jira maadaama dahabka uu faday balse nasiib wanaag dahabka waa uu helay ugu dambeyn maadaama dahabkaasi uu helay dan waxaan arkaynaa isagoo oo dahabka maadaama dhawacyo badan soo gaareen waxaan arkaynaa isagoo oo dab intuu shitay dabka iska dabeynaya hadda waa mid iska dabiyey dabkii haddana waxaan arkaynaa gabadhii uu dilay oo inta soo laabatay biyo siinaysa balse xilligaasi kadib waxaan arkaynaa isagoo oo ku riyoonaya waxaan oo isla maraya masriya ma ahan balse telefoonka ayaa hadda soo dhacaya telefoonka ayuuna raadinaya telefoonka kadib marka uu helo wax uu caya ninka wuxuuna ku leeyahay niyo gabadh ayaa igu soo laabanaysa gabadhaasi waa aan dilay marka sida ay igu soo laabanaysa war oo ma haya aniga balse marka wuxuu ku leeyahay niyo gabadha dil gabadha waxba gabadha dil balse gabadhan maadaama gabadhan haddaba la soco waa gabadh uu ninkan isleeyahay waa gabadha aad dhashashada ayay ku soo naalan kartaa hadda waxaan arkaynaa gabadhii oo iska tegsanaya waana caafimaad qabaa maadaama ay ku leedahay taxadirkeeda habato in iskaga tagtay hadda waxaan arkaynaa isagoo oo meesha ay kaga tagtay kadibna dab shidanaya dab ay u shiday iyada dab u shiday kana sii buuxsantay maadaama hadda uu kasii buuxsantay hadda waxaan arkaynaa isagoo oo kasoo boodaya meel fog isagoo dabka shidanaya kadibna ninka wacyan ku leeyahay aniga ma fahmin xaaladda meesha ka dhacaysa gabadha igu soo laalanaysa war maayo balse hadda waxaan arkaynaa dabka maadaama uu shidan waayay wax cunaya ayay xayawaanada ayaa cunaya ninkan bartaasi ayuu ku dhintay warqadii xasiinteed isagoo dib oogaya halkan waxaa ka eegaya saaxiibkii oo halkaas rabay inuu ku dilo kuna daawanaya fininkaas kuna daawanaya xayawaanada cunaya balse xayawaanada cunaya kadib waxa uu arkayaa in gabadhiisu soo qaatay kadibna dahabka u goro uuna isdhaho aniga keligay ayaan noqon doonaa milyaneerka caalamka milyaneerka dahabka balse hadda waxaan arkaynaa isagoo oo lagu dhuftay banada manadaas cid ku dhufan sacid kala ma ahana waa gabadhii halkaas socotay gabadhii marka hore biyaha siinaysa ninkani gabadha biyaha siinaysa kadib geeyo waa cid kale ma ahana waa gabadhii uu ninka shaqaalaha u socday ninka shaqada u socday uu dilay intaas kadib waxaan arkaynaa filimkii halkaas ku dhamaaday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
fadlan muuqaalka like saar, subscribe na saar, aad baad mahadsantahay. Muuqaalkan intan ayuu ku dhan yahay. Inta waxaan ka codsanaynaa nolosha doonta muuqaal lada halkan aad kala socon doonta. Waad mahadsantahay. Thank you.